horkacay wafdigaasi taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalkaasi Shiinaha General Fanko General Frank waxa uu jamhuuriyadda Djibouti ku joogaa booqasho 48 saacadood ah kulanka dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda iyo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee wadanka Shiinaha waxa lagu soo qaaday amuro badan oo dan u ah labada wadan ee saaxiibka ah waxaana labada dhinac isku afgarteen xoojinta iyo kor u qaadida iskaashiga militari ee u dhaxeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda Shiinaha wafdiga saraakiisha ee uu horkacayo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka Shiinaha waxa ka mid ah taliye ku-xigeenka ciidamada cirka General Shang Xianbing amiral ku-xigeenka ciidamada badda Shang Yubank kulankaasi waxaa sidoo kale u joogay agaasimaha guud ee warfaafinta ciidamada General Shang Juanqing agaasima ku-xigeenka xafiiska arrimaha dibadda ee wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Shiinaha kulankaasi dhinaca jamhuuriyadda Djibouti waxa iyaguna ka qayb qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga mudane Maxamed Ali Yuusuf taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Zakariya Sheekh Ibrahim General Usman Umar Subagle iyo General Tahir Maxamed Ali ayaa iyaguna ka qayb qaatay kulankaasi kulan shaqo ayaa maanta guriga ummadda ku dhex maray taliska sare ee ciidamada qalabka sida ee dalkeena iyo wafdiga militari ee ka socda dalka Shiinaha ee warkacayo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalkaasi Lieutenant Vincent, c'est Abdullah Saad, commandant trouve dans l'air, aviseur de général. looga hadlay xoojinta iskaashiga militari ee ka dhaxeeya ciidamada qalabka sida ee labada dal ee saaxiibka ah ee Djibouti iyo Shiinaha waxaana u joogay saraakiisha sare ee ciidamada qalabka sida ee dalka oo ugu horeeya taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Zakariya Sheekh Ibrahim xaka Shiinaha waxa kulankaasi madaxa ka ahaa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Shiinaha Fong Fengyu oo markii ugu horeysay booqasho shaqo ku yimaada jamhuuriyadda Djibouti taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Zakariya Sheekh Ibrahim ayaa saan sharafaad ka qaatay saraakiisha ka socda dalka Shiinaha ee weheliya taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka Shiinaha ujeedada ugu weyn ee booqashada taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Shiinaha ayaa ah xoojinta iyo kor u qaadida iskaashiga militari ee Shiinaha iyo Djibouti
taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Zakariya Sheekh Ibrahim ayaa kulankaasi ugu dambeyntii ugu tol bilad dhigiisa generalka taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka Shiinaha ee booqashada shaqo ee 48 saacadood ku jooga Jamhuuriyadda Djibouti.